sheegashadooda inaanay shabaab ahayn laakiin shaharkooda ay shacabka ku baadayaan cidna shaki ma gelin weli laakiin shuruuddu waxay tahay in ay sharcigu maraan shaacana ka qaadaan shaxdii ay ku kala dabiri jireen howlahooda isla markaana ay u adeegsan jireen shaar laga cabsado isticmaalkiisa samee salaama inta samaha jecel iyo Soomaalida oo idil waqtigii wayuu haydin wacnaad halka taani nooga daawanaysan waa saxaaf jannal saacadu waa qof waliba intay u tahay soo saarona waa saxaaf u diyaar garow muuqaal cusub muuqaalkina daawadayaal waxa uu ku saabsan yahay Cabdi Abuukar Xuseen Axmed Maxamed Samatar iyo waliba Xasan Galbay Xuseen xilligan waa shakhsiyaadka ugu hadal haynta badan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan halka Soomaalidu ay joogtaba saddexdan shakhsi waxa ay sameeyeen waxa ay la yaabeen Soomaalidu idil sababtoo ah waxa ay xilligeen oo ay dhibaato aad u xoogan u horseedeen nafsadooda Cabdi Abuukar Xuseen Axmed Maxamed Samatar iyo Xasan Galbay Xuseen waxay ahaayeen saddex shakhsi oo magaca al-shabaab ku baadayay shacab Soomaaliyeed oo dhisanayo guryo iyo deegaano iyagu ay leeyihiin saddexdan shakhsi inta ay hurdayaan mooye inta ay soo jeedaan waxay soo salaami jireen shacabka dhisanaya guryaha waxayna iska dhigi jireen inay yihiin al-shabaab isla markaana doonaya in ay qaadaan lacagta amniga waxa ay shabaabka ugu yeeraan muddo aan yareen oo 2 sano kor u dhaafay ayay hawshan ku guda jireen saddexdaani ruux laakiin midna midka kale ma uusan ceshan inta waqtiga ay haysteen mid waliba waxa uu macaansanayay lacagaha laga soo qaado shacabka oo looga soo qaado magaca al-shabaab iyo waxa amniga loogu yeero wata carabtu ay dhaadaan zaada dirham zaada al-hawa oo maalin waliba marka ay lacagahaasi qaataan waxa uu ziyaadi jiray hawada oo waxa ay ku fikiri jireen maalinka berita ah cida ay lacagaha baada ka qaadayaan markii loo eego dhabta saddexdan shakhsi waxa ay yihiin kuwa labada dhinac ka gubtay ama aanu dhigaba dharigii labada dhinac ka gubtay oo shabaabku haday qabtaan way dilayaan haddii dawladdu ay ka war heshana xukunka ka yaala ayay mari doonaan iyagoo taa og isla markaana la socda in labada dhinacba ay dhibaato tahay ayay ku dhiiradeen in howlahaani ay sameeyaan ama ay qabtaan deegaanada ugu badan oo lacagaha baada ay magaca al-shabaab uga qaadi jireen waa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho hadeer iyagu islaama yaabana ee shacabka la yaaban sababtoo ah iyagu waxay u arkaan in ay ku qaraabanayeen magacaasi lacagaha ay ku heleenna ay ahayd mid ay nolol maalmeed ka dhiganayeen laakiin shacabka ayaa ka argagaxay arrinkan oo iyagu mala awaashay haddii shabaabku gacantu ay ku dhigi lahaayeen waxa ay muteysan lahaayeen haddaba yaan idinku daalinin sheekade saddexdan shakhsi ee salaanta subax walba uga tagi jiray shacabka isla markaana aanan haysan shaar dawladeed iyo shaar shabaabba waxa haatan gacanta ay ugu jiraan ciidamada ammaanka waxaana la weydiin doonaa su'aalo aad u fara badan oo ku qotama qaabkii ay lacagaha u qaadan jireen inta reer ay baadeen iyo haddii ay jirto xiriir ay la leeyihiin kooxda al-shabaab sheegashadooda inaanay shabaab ahayn laakiin shaharkooda ay shacabka ku baadayaan cidna shaki ma gelin weli laakiin shuruuddu waxay tahay in ay sharcigu maraan shaacana ka qaadaan shaxdii ay ku kala dabiri jireen howlahooda isla markaana ay u adeegsan jireen shaar laga cabsado isticmaalkiisa